maxaa soonkaaga khatar gelinaya oo aadan ogeyn waxyaabaha aysan dhalinyaradu sida weyn ugu baraarugsanayn ee soonkooda sida fudud ku dhaawacaya waxaa ka mid ah dhaadhuuga. waxaanse idiin soo gudbinaynaa waxa ay culimmadu ka qabaan dhaadhuuga iyo dembiyada uu leeyahay in la ciyaaro. ila daawo sida ay culimmadu isku raaceen iyo dembiyada uu dhaadhuugu leeyahay. dhaadhuugu ma bannaana isaga iyo wixii la mid ah ciyaaraha la midka ah sida maalan dubladoo kale, shaxda, turubka, ciyaaraha baabka ku yimaado oo dhan ma bannaana sharcan, leanna waxaa ku jira mafaasid aad u fara badan, waqtigii oo lagu luminayo waxaan faa'iido lahayn. nabigana wuxuu yidhi sal alay wasalam min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih, ruuxa islaamnimo wanaaggiisa waxaa ka mid ah waxaan faa'iido u lahayn inuu isaga tago. oo waxaa xadiid baa ku yimid xadiidi burayda fi saxiix muslim iyo keyrkiibuu ku yaallaa. nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam man laciba binardashiir fakaannamaa sabaqa yadahu fii laxmi khinziirin wa damihi. ruuxii ciyaara buu nebigu sal alay wasalam wuxuu la mid yahay ruux gacmihiisa marmariyey oo kale hilib doofaar iyo dhiiggiis. haddaba walaalkayga muslimka ah uu ka fogow dhaadhuuga iyo waxyaabaha la ciyaaro ee aan soonkeenna iyo cibaadadeenna anfacayn. laadhuuda oo kale ayadu waxa weeye haddii markaa wax lagu kala qaadanayo sharadi lacag lagu kala helayo waa mid xaaraan oo aan bannaanayn. haddii aan waxba lagu kala helayna iyaduna say culimmada muslimiintu u badan yihiin mid xaaraana weeye nabigeenu sala allahu calayhi wasallam wuxuu man laciba binardashiir, qofka bahasha laadhuudaa ciyaara waxa uu ka dhigan yahay qof gacmihiisa hilib doofaar iyo dhiiggii dhexgeliya ayuu ka mid yahay. markaa laadhuuda haddii wax lagu kala helaya haddaan waxba lagu kala helaynin midnaba ma bannaana.